السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ku salaamayaa saaxiib Cabdullaahi sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan haweendaawadayaasha ku xiran TV-ga caalamiga ee Universal TV. barnaamijka horta qaabka anagu naqaano Soomaali ahaan magaciisa dhanka mataqaana ku dhawaaqida Sweet Coin laakiin anagu iyo Soomaalidu badankooda wuxuu hirgalay magacan Sweet Coin-kan waa barnaamij waxaa la aasaasay 2015 waa barnaamij loogu talagalay dadku haddii socdaan sida ay ku xisiyaan waxa weeye artikaladooda ama taqaana reference-gooda qofka markuu socdo uu ka sameynaya lacag laakiin markii aad tijaabinay uusan asaas ahayn run ahaantii waa campaign 2015kii laataasi qaab application waxaa lagula soo degi karaa Apple Store-ka iyo sidoo kale Google waxa weeye mataqaana oo Play-ga marka barnaamijka waa Sweet luqadda qalaad waxay ku noqonaysaa waa dhididka ama qofku waa coin-kii ama lacagtii lagu shaqaysanayay dhididka haddii basically aan af Soomaali aan u turjumo way sidoo u shaqeeyaa geli sharaxaad inaga barnaamijkan qaabka uu shaqeeyo loo bilood ka hor baa runtii baa waxaan ka sameeyay muuqaalo wax badan runtii waa ka hadlay qaabka ayaga qolyaha iskale shirkadda Sweetcoin iyo qaabka anagu aan u tijaabinay waa labo ayagu waxay leeyihiin qofka markuu lugeeyo socod badan uu lugeeyo baa waxaa lagu siinayaa waxa weeye coins stepskaaga waxaa lagu bedelayaa coins marka waxay leeyihiin kunkii step ama kunkii tallaabo waxaa ku helaysaa waxa weeye hal coinankaas qaab virtual weeye coinankaas mustaqbalka waxay leeyihiin waxa u bedelan kartaa haddii kuu kordhaan ama kuu bataan lacag cash oo dollar baad u bedelan kartaa markaasaa faa'iidada baad ka samayn kartaa waa qaabka ayaga ay u sheegeen qaabka annagana aan ku soo ogaanay aan waxa weeye haddii qofka inuu lacag ka sameeyaan insha Allah halkii coin meeqa ayuu u dhigmaa lacag ahaan haddii loo bedelayo run ahaantii halkii ayaga horta kunkii step waxa ku siinaya hal coin oo Sweet Coin ah Sweet Coin weeye kunkii ama taasib sameeyaa laakiin lacag ahaan kunkii waxa weeye halkii coin kunkii waxa halkii coin wuxuu noqonayaa $0.05 waa aad lacag u yar weeye 0.05 cents ujeedada loo aas-aasay ma in dadku ay socodkaas lacag ka sameeyaana mise waxaa kala duwan sida iyagu ay ugu talagaleen iyo sida Soomaalideena hadda ay u isticmaalaysa ay ah inay bilaabeen socodkii si ay lacag u helaan run ahaantii aad bay u kala duwan tahay waxaan arkay dad badan waxa weeye ordaya ama socod badan sameynaya si ay lacag uga sameeyaan ayagu sababtu aasaasan waxa weeye inuu noqdo barnaamij dadku uu socodka ay ku tirsadaan stebiska maalinkii uu shaqeeyay si mataqaana oo qofka hadduu uu cayl iska dhima ama caafimaad ahaan ay u jirto laakiin socodkan la soconayo run ahaantii marka ogaanay gadaal aan ka ogaanay wax lacaga laguma samayn karo oo lacag ahaan cid kugu bedelayso ma lahan laakiin annaga ahaan Soomaalideena baa waxay u qaateen in socodkaasi lacag lagu bedelayo dadka qaar waxay leeyihiin oo waliba ama baraha bulshada muuqaalo soo dhiga in lacag ay ka sameeyeen oo ay lacag dadka tusayaan mararka qaar application-ka ayaa si qaldan u shaqeynaya sidee ku dhacdaa in lacag dollar ah qofkii loo soo bandhigo ama uu arkayo ama application markuu isticmaalayo haddii uu masaafo badan socdo way jirtaa horta barnaamijkan lacaga waa laga sameeyaa anaa ka mid ah dadka waxa weeye lacagaha ka sameeyay lacag cash oo real ah dhankaygana mataqaana YouTube-ga la bashir waa ku soo gudbiyay anoo lacagiisa toos oo la baxay inay soo gaadhay laakiin qaabka lacagta looga sameeyo qaabkaas ma barnaamijkan wuxuu u shaqeeyaa qaab loo affiliate marketing waxa weeye inaad product ama service company ee leedahay aad u promote gareysid ama aad u xaysiisid marka linki gaar ah baa adiga lagu siinayaa oo unique ah oo referral linkigaasi dad badan markay iska diiwaan geliya ama dad badan u keentid lacag reward ah bay ku siinayaan qaabkaasa lacagta lagu helaa magacana waxaa loo yaqaanaa businesska noocaas u shaqeeya affiliate marketing laakiin socodkan iyo orodkan la sameynayo waxa lacaga laguma helo qofkii raba inuu marka Sweetcoin lacag ka sameeyo waa inuu ku biiraa programkooda affiliate qaabka ugu biirtin waxa weeye inaad marka hore 30 qof aad invite gareysid application ay soo degsadaan si active ay u isticmaalaan markaas waxaa lagu furiyaa qayb loo influencer hub waana qaybta waxa rewardka ay ku bixiyaan lacagahana lagu siinayo haddii dad kale badan aad u keentid marka kunka qof u horeeya hadda markii aad keentid waxaa lagu siinayaa lacag waxa weeye $100 oo u dhimato oo cash ah lacagta $100 lagu siinayo dadka way kuwii la soo baxayaan way lacagaha marka macna waxa weeye ma ahan dadkii soconaya ama socod maada ku helin laakiin referral-kaagii ama qaabka affiliate programkaas faa'iido ahaan baa looga sameeyaa exactly qaabkaas weeye marka ma jirto meel lacag looga qaadayo Sweetcoin socod ama soco 1 kilomitir ama 2 kilomitir soco hawl qofkaas isaga goon ugu taalo waa maahe wax lacag oo Sweetcoin ku bixiyo ma jirto Soomaa
xaqiiqdii waa saas weeye wax lacaga socodka loogu bixinay keliya caafimaad ahaan iyo adiga mataqaana inaad qaabka u isticmaasho maahan application badanna way jiraan oo socodka iyo orodka marka gymka sportska la sameyn la isticmaal qaabkaas inaad aad uga faa'iidaysto maahane lacag ahaan socodka laguma bixiyo Sweetcoin runtii dadku waxay isku qaldayaan calaamadda Sweetcoin waxay u ekeysiiyeen lacagta dollarka oo kale laakiin qofka si fiican u fiiriyaa loogada Sweetcoin-ka waa asweeye dollar wax u eg maahan marka dadku waxay moodayaanba kor haddii ku saaran tahay 1,000 Sweetcoin waxay moodayaan $1 inay dadka u saaranta ma ahan calaamadaasna dollar maahan aad bay uga duwan tahay runtii ma ahan dollar dadka taasa marka baa khaldayso qofka marka keenaa dad badan linka u diraa ku dhiirigeliya inay Sweetcoin ku biiraan kunkii qof markuu keeno waxaa tiri waxaa la siinayaa $100 marka boqolkaasi ma lacag mar kasta isaga la siinayaa u soconaysaa mar kastoo dad keeno mise halkaa mar ay ku egtaa oo keliya may waxa weeye marka hore 3 qof baa keenaysaa markaas waxaa lagu siinayaa email baa kusoo dhacay ee kugu hambalyeynayaan in hadda kadib aad ka mid noqonaysid dadka ku shaqaysta affiliate-ka kunka qof u horay markaysid baa $100 lagu siinaya su-aasha haddaa usoo laabtay lacag kaarin ma ahan lacag mar walba kuusoo laalaabanaysa ma ahan laakiin mar walba aad dad cusub keentid lacagtii bay ku kordhaysaa 25 baa u yar $1,000 baa u badan marka mar walba waxa weeye boqolkii haddii hal mar la baxay uu kaa dhamaanaya haddana dad kale cusub waa inaad soo ifaadgelaysid haddana waxa boqolkii kuu soo laabay marka barnaamijkan dadka si fiican uga faa'iideysan kara waxa dadka social media influencerska ah oo dad badan oo ay ku xiran yihiin baad dadkaasoo kale baa si fudud lacag uga samayn karo ama affiliate kiisa guud ahaanba waxa weeye qaab xaysiis ama Google ad ama Facebook ad inaad samaysid oo dad badan aad reach gareysid oo adiga marka aad lacag ku bixisid si linkigaas ama application-kaasi dad badan ay u arkaan kadibna iska diiwaan geliyaan qaabkaasna lacag waad uga samayn karaa laakiin qaabka hore waa in adigu investment aad samaysid Facebook ad ama Google ad ama YouTube ad aad samaysid laakiin qaabka fudud waxa weeye qof influencer social media ka caana sida TikTok, Facebook, YouTube, Telegram dad badan ama community badan oo ay ku xiran yihiin hadduu linkigiisa si easy u soo dhigo dan dad badan baa iska diiwaan geliya markaas lacagtaas mar walba qof cusub soo galana lacagtii ku siyaadaysaa way dadka isdiiwaan geliyay ee linkigaaga qaatay iyaga maxay helayaan dadka ay diiwaan geliyay linkiga qaatay ayagu waxba ma helayaan laakiin surface-kaas bay ka dhex faa'iideysanayaan oo qaabkaas bay ugu jiraan qofkii rabana dee adoo kale inuu noqdo asana dad badan keenaa oo message-kaaga sii gudbiya oo dad kale u sii gudbiya asana dee wadada soo martay u soo maraya qaabkaas waa asal lacag kale uga samayn karaa gel waxaad ogtahay Soomaali badan inay ku ceertooday isticmaalkii forex-ka dadkuna dareen gaar ah ayay ka qabaan application-nadan ama aaladan internet-ka iyo qaababka kala duwan ee lacag looga sameeyo Sweetcoin-kan muxuu kaga duwan yahay forex-kii dadku ay hore u isticmaali jireen ee lacagaha badan lagu waayay runtii aad buu uga duwan yahay sidii aan sheegayba Sweetcoin-ka wuxuu hoos tagayaa programmada la dhaho affiliate marketing qaabkaas baa lacag looga sameeyaa in shirkad service-keeda ama product-keeda aad u xayeysiisid link gaar ah lagu siiyo kadib service haddii la gato ama dad kale isticmaala ama application-nada ay la degaan lacaga adiga si gaar ah lagu siinaya oo abaalmarina forex uu ka duwaya forex-ku waa suuq u baahan marka in adigu maalgashid forex-ka haddii aad maalgashan lacag kama sameyn ka dhawaanaad risk qaadid waa wax skill u baahan forex-ka aqoon u baahan qofkana rabo marka hore inuu maalgashto laakiin Sweetcoin investment ma u baahna waa zero investment service-kaas baa la soo degaysaa qaabkaas dad kale baa raadinaysaa si aad uga faa'iid laakiin aad bay u kala duwan yihiin waana waxa weeye laba fadhiyo aanan shuqul isku lahayn kan Sweetcoin qofka laguma dhici karo waayo Sweetcoin dee lacag gashanaysa oo $1 xitaa ma gashanaysa keliya application baa la soo degaysaa marka ka kalena wuxuu u baahan yahay maalgashiga qofka hadduu aqoon u lahayn forex-ku kale basically wuu ku khasaari karaa marka laba shay ayaa sheegtay in Sweetcoin lacag looga sameeyo bal marka labadaas shay ama labadaa qaab ee lacagta looga sameeyo noogu celi gel qaabka ugu muhiimsan oo uguna fiican waxa weeye Sweetcoin aad lacag uga sameyn kartid in mataqaanaa social media influencer aad tahay aad waxa weeye linkiga unique ay ku siiyaan waxa weeye aad ka faa'iido dad badan baa laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa shirkaddan Sweetcoin lacagaha u qaybinaysaa oo mataqaanaa shirkaddan 2018 ilaa 7 milyan bay waxay maraysaa dhaqaalahooda marka waa dad raba dad badan inay bartaan dad badan soo saaraysa Facebook-koodana waxay siinayaan haddii aad gudaha aad u gashaan application-ka Sweetcoin shirkado waaweyn baa waxay ku dhex iibiyaan baratiyadooda maadaama dad badan maalmoodba ay ku soo biiraan marka laftigoodu $100 ama $1,000 qofka ay siinayaan ka badan baa waxay ka soo galaan
website-yadaas iyo shirkadahaas iyo borortiyadaas website-kooda ama application-kooda laga dhex adeeganayo xitaa waa Amazon baa ku jirto application-kooda waxba ka dalban kadhaa haddii aad dhanka lacagta aad ka qaadan oo kale qaabkan waa ka dalban marka qaabka waa qaabka inaad dad badan aad fadgelisid qaabka lacag waa uga sameyn kadhaa barnaamijkaas affiliate marketing baa lahaa qaabka labaadna wuxuu noqonayaa waa kan dadka ay hadda sameeyaan oo socodka ah aniga kama aaminsani in socodka lacag looga sameeyo ilaa haddana maana arag qof socod badan sameeyey oo runtii lacag la baxay ilaa hadda maana arag muddo hadda almost 2 bilood barne waan waxa weeye aad baa ugu dhex jira Sweetcode maxaad u sheegaysaa dadkan Soomaaliyeed markay hadda bilaaba isticmaalka adeegan ee qaarkood socodka bilaaba si lacag u helaan ma arrin ay wax ka jiraan aad leedahay oo dadku ay sii geli karaan xoog badan mise waa si khaldan ayaa loo fahmay isticmaalka Sweetcode runtii waa su'aal aad u muhiim ah aad baa u mahadsantahay aniga waxaan aaminsanahay dadka horta waxaa ka mid ah full time online-ka ama waxa weeye aan ku shaqaysto oo waxa weeye runtii dhaqaale gacan ka sameeyo mar walba aniga waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada inay xirfadaha iyo skills-ka online business-ka ay bartaan haddii ay noqon waxa weeye digital marketing-ka graphic design-ka blogging-ka social media qaabka lacag looga sameyn karo waxaasoo dhan waqti ku bixi naftaada maal gasho waxa weeye xirfad baro laakiin application-adan iyo mataqaana website-yadan marmar bay soo baxaan wax sii socdaan maaha si gaara baa lacag looga sameyn karaa laakiin wax runtii faa'iido badan marka dheena waxa la yahay Sweetcode ha isku mashquulina waqti badan ha iskaga bixinina guud ahaan dalalka dhan miyaa laga isticmaali karaa haddii sida saxda loo adeegsanayo mise dalal gaar un baa loo ogolaya dadka ku nool guud ahaan waxa weeye marka website-kooda aan arkay wadamo badan baa u faraxta Soomaaliya way ka mid tahay waayo waa la isticmaalaa dadka ka faa'iideysan karana waa dadka affiliate marketing-ka raba inay ka sameeyaan dadkaas kale way ka faa'iideysan karaan programming way qaadan karaan dad kale haddii u dirdiraan waxa dad kale ka diiwaan geliyaan ayagoo application u sheegaya oo socodka inuu caafimaad u yahay qaabkaas sida positive-ka haddii u maraan lacag badan qofkaasi dadka casuumiyo ka sameyn karaa laakiin qaabkan dadka loo gooni leeyahay haddii aad socotay lacag wada meelta appkan iska diiwaan geli taas waxa isleeyahay mataqaana ma ahan qaab sax ah marka socod laakiin lacag waa laga sameeyaa laakiin socod lacag loogama sameeyo sidiisaba may absolutely socod lacag loogama sameeyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ku magac dheer Geela Bashiir waa asaasaha macadka Geela Bashiir sidoo kale waxa uu ku shaqaystaa aaladan digitalka isagoo YouTuber ah dadkana siiya macluumaad la xiriira aaladaha online-ka iyo sida looga shaqaysto Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay